komishanka maamulnaaga ila dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay gudaha dalka xiligan ka hirgelinaya barnaamij cilmi baariseed ku qotoma dhanka maamulnaaga kaasoo xiligan loo qorsheeyay bilowgiisa koobaad lagu daafuro 15 wasaaradood oo wasaaradaha adeegga bixiya abaarasoonimadkii horeysa ka iyo munaasabada daafurka barnaamijkan cusub ee cilmi baarista si rasmi loo gashay halkan waa mid kamid ah howlka ku yaala hotelka Baraar ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaano ka soo baarlamaanka agaasimayaal gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta komishanka maamulnaaga ila dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland oo iyagu muddo dheer ka soo shaqeynayay diyaarinta qorshahan cusub ee cilmi baarista bilowga koobaadna waxa goobtaasi ka hadlay Liibaan Ismaaciil Buraale gudoomiye ku-xigeenka komishanka maamulnaaga ila dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland isaguna faahfaahin ka bixiyay ujeedada gaaranayd ee ku dugan cilmi baaristan cilmi baaristu ama research waxa la yiraahdaa waxay daaha ka faydaa in la ogaado xogtaas marka waxay noqotaa study in wax laga barto dabeedna la gufeeyo godoloolada sidaa darteed waxaanu cilmi baaristan ugu talagalnay 15 wasaaradood intibaaxay oo ah 15 wasaaradood ee adeegga bixiya wajigooda kooban marka waxaynu ugu talagalnay inaynu qiimeeyno heerka maamulnaaga wasaaradaha adeegga bixiya ay ka taagan yihiin laba inaynu kor u qaadno marka dambe inaynu qiimeeyno isku xidhka wasaaradahaas iyo wixii godoloolooyin ee jira uu komishanku buuxiyo marka hay'adaha dawladdu mid waliba waa unuga jidhkuna muxuu ahaa is dhameystiraa maamulnaaguna marka laga hadlayo waa wadnaha muxuu ahaa dawladnimada haddii aan maamulnaag jirin waxay la mid tahay un qof wadnuhu buko marka inaynu maadaama qaranku jaranjarooyin badan soo maray maalinba meel aynu taagnayn iminka waxaynu gaarnay maadaama aynu 30 sano baarka ka jarayno waqtigii aynu u jihaysan lahayn hay'adaheenu halkay maanta taagan yihiin meel ka sii sarreysay inay gaaraan oo aynu caalamka la tirtirno sidaa darteed waxaanu markaa ugu talagalnay qodobka saddexaad waxa weeyaan inaynu kor u qaadno meelaha la dirsay oo ay soo baxa iyadoo awood la siinayo oo komishanku awoodda ka shaqeynayo sidii uu buuxin lahaa meelaha gaabku ka soo dhankooda waxay kuna halka hadalka isaga daba maray agaasimaha komishanka maamulnaaga ila dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland agaasimayaasha guud wasaaradaha arrimaha dibadda horumarinta biyaha ganacsiga tacliinta sare shaqada iyo arrimaha bulshada qorsheynta qaranka iyo xildhibaan Saciid Cilmi oo gudoomiyaha gudoosaadka dabagalka hantida qaranka ee aqalka golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe kuwaasoo dhammaantood si isku mid ah hoosta uga xariiqay muhiimadda gaaranayd ee barnaamijkan u leeyahay dhanka maamul wanaaga ee xafiisyada dawliga dalka waxaa tusaale idinka qaabka wax u dhaqaaqeen qaabka ilaa labadii sanadood ee ugu dambeysay caafimaadka u soo gelayo maamul wanaaga maanta iyo shalay maanta waxaan taagnahay iyadoo research maamul wanaaga ay sameynayaan guddigii maamul wanaaga oo la isugu soo ururiyay wasaaradihii dalka ugu jira waxaan isleeyahay waa tallaabo hore loo qaaday inaynu ka hakanno inaynu isweydiino waxaynu wadniyo shaqadaynu qabanaynaa ma haysataa oo muwaafaqsan tahay shuruucdii qaranka iyo siyaasaadkii iyo nidaamyadii iyo habraacyadii siyaasadeed ee loo diyaariyay muwaafaqsantahay waxaan isleeyahay gundhiga iyo mandate-ka dee hay'adda maamulnaagu halkaas ku aroora waxaan isleeyahay waa hawl wanaagsan oo qaranka tilmaan u ah inaynu isqiimaynaana waxay u fiican tahay adeeg aynu qaranka u hayno iyo institutionska dawladdu shaqaday hayaan waan ku ammaanayaa runtii hay'adda maamul wanaaga waana markii horeysay la sameeyo daraasad noocan oo kale la iba bixiyo ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka maamulnaaga ila dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland Dayib Aadan Xaaji Cali iyo sidoo kale Salebaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waa meelaha aan agaasimayaasha wasaaradaha ayaa ka mid ah iyaga ku dhoodu in wasaarad kasta ay leedahay buug qoran oo agaasimo kasta mas'uuliyadiisa la ogyahay maamul wanaagu ma aha in laga eego foojarka oo kaliya inay maskaxdeedna ku jirto ma laakiin shaqada qaranku sida u socon lahayd iyo sidaan conflict u imaan lahayn iyo sidii aynu u wada shaqayn lahayn inagoo garanayna qof kasta shaqadiisu waxa ay tahay waxaan isleeyahay shaqada ugu muhiimsan ee idin taallaa waa sidii dawladdani iyo ummaddani u wada shaqayn lahaayeen oo qof kasta responsibility-giisa u garan lahaa oo wasaaradaha xuduud u kala lahaan lahaayeen
oo hay-aduhu xuduud u kala lahaayeen oo ciidamadu xuduud u kala lahaayeen ismaamul wanaagay ka mid tahay waxaa laga yaabaa hadda shaqo 3 wasaaradood ama 4 wasaaradood hadday siradaan wada shaqeeya markiiba in conflict bilaabo waxaan rajaynayaa komishanka maamul wanaaggu shaqooyinkiisa amba xeerka uu ku aasaasay yahay laga xeer number 8 qodobkiisa 6 faqradiisa 2 oo sheegaysa dirsidda iyo qiimeynta nidaamka dowladda hay'adaha dowladda iyo ka soo tala bixinta hanaanka lagu toosinayo ayuu daaran yahay research-kani waxaan rabnaa inaan daraasayno wixii laga soo hadlay oo ah adeega ay bixiyaan wasaaradaha 15 aan u dooranay markan inaan ku samayno ama baarista wasaaradda dadka ka soo qayb galay waxa soo jira 2 qaybood qaybtii aan ku sameeynay baaritaanka heerka uu taagan yahay levelka maamul wanaaggu iyo qaybta aan wada shaqaynta leenahay oo ugu horeyso hay'adda baak aba guddiga dabagalka iyo heeranta qaranka baak marka commissionku wuxuu dhiirigelinayaa tallaabo kasta oo lagu saxayo xagga maamulka tallaabo kasta lagu wanaajinayo iyo si kasta loo wada shaqaynayo dhowaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu samayn doonaa hay'adaha dowladda qaabkay u wada shaqeeyaan xeerka laga xeer samatuwan iyo siirowan ay dhiin nidaamyihii madaxweynaha ayaa wuxuu sheegayaa qaabka hay'ad kasta u shaqeynayso dowladeed wuxuu sheegayaa mandate-ka iyo shaqada amba tii oo arka ay wasaaraddu leedahay marka conflict of mandate dambo imanaya oo hay'adaha dowladda kala dhex gelaya runtii ma jiro aad iyo aad baad mahadsantihiin hadalku waan soo koobay loojinka وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في Somali Cable Hargeysa